nin walba ceesaantiis ceel keensay waa maahmaah Soomaaliyeed oo maskaxdaada ku soo dhacaysa marka aad soo joogsatid meel caynkan oo kala ah oo qof walba uu la yimid wixii uu yaqaano ee wax u goyn kara mid maswata iyo mid kaamirad ku bariisaynaya qof walba xirfadda uu arko inuu dhaqaale ka abuuri karo ayuu la yimaadaa beerta Banaadir oo ah goob ay dalxiis iyo nasasho u yimaadaan dadweynaha Muqdisho maalmaha fasaxa Qaalid wuxuu dadweynaha lacag uga aruursadaa inuu qoorta u galiyo maskan oo ah nooca loo yaqaan jibisada dadka ayaa iyaguna ah kuwa aad u daneynaya inay sawir la galaan masaska si ay asxaabtooda baraha bulshada ugu muujiyaan heerkooda geesinimada magacayga horta Asmi Saciid beerta Banaadir baa joogaa ma sha Allah maskan horta waan ka cabsoonaya laakiin dareenhan waa habi oo ku faraxsanayn inaan maskan maantay qoortayda suran yahay ama sawir ku galo uguna imif beerta Banaadir waxyaalo badan oo aad u qurux badan ma sha Allah waxaan u maleynayaa inay tahay markii ugu horeyso kow qoortayda masfuulo waan ka cabsoonaya mas aragto dhiiratay in aad u bareertid arinta waan jeclahay inaan sawir ku galo aadaan u xiiseynaya shakhsiyadayda waana ku faraxsanahay inaan sawir ku galo aad iyo aad waayahay walaal magacaaga ku global see dareemay xagee maroosa magacay horta Abdulfataax Maxamed Cumar Aldaa maanta waxaan joogaa beerta Banaadir maskan arkay maskan caadi u absanaay maskan inaa dadkay saarto waan jeclahay ka waran marka cabsida dareenkaaga ka waran absi waxa marka saara waxa ismaleynaa wax jini isaaran kala maanta maskooliyay buu idaaw ku arkay maanta arkay Qaalid wuxuu ii sheegay in maskan uu qof ehelkiisa u soo qabtay isagoo yar sanadkii 2011 wuxuuna ku soo koriyay caano uu masaasad ku siinayo iyo hilib dooro Qaalid wuxuu hadda iyo ilaa yaraantiisiiba jeclaa inay nolol wadaagaan xayawaanada kala duwan maskan waxa ka keenay Kaaraan maantana waxa jooga beerta Banaadir dadkana waxa uu dhiirigeliyaa maska mid dadka saameynaya oo baahala oo dadka inuu wax ku saameeyahay ma waxa waaye dadkan waxay jecel yihiin inay sabir ku galaan xoogaa sirfeel ku galaan maadaama beerta khamiista iyo jimcada ilmaha ciyaalka ku dheelsiyo oo sabirana ugu qaado maadaama ciyaalka iska jecel yihiin xayawaanada iska jecel yihiin waxyaabaha oo xayawaanada in isku sabiraan iyo dadka waa dareemsiya dadkana waxa uu sheegaa inuu ilka lahayn mar aan weydiiyay in uu maskan leeyahay dhibaato uu gaarsiin karo isaga iyo dadweynaha uu kula dhex jiraba waxa uu ku jawaabay weligii asoo qatar aanba waxyaabo saameena keenayo weligii kuma arkin laakiin waa arkaa masaska duurjooga asiga iyo masaskan kale isku mid ma midkan waa asoo yariis ilaa hadda la rabaayiyahay dadkii waa la qabsay bulshadu waa la qabsay wax oo saameeyahay ma leh masasku waxay leeyihiin xididad sun ah ma ka saartay mise si kale oo aad u rabaayadaysay baa jirta masaska waa kala yihiin masaska kuwa sun leh iyo kuwa aan sun lahayn kale kuwa sunta leh maxaa waaye aweesada maskabraha midkan waxa waaye jibisada dadka waa isku laabtaa waa isku jibiyay kadib waa la qeey ma fahanti wax ay sun ee leedahay saameyn ma leh laakiin xididkaas ee dadka isku jibiyayso laga baxshaalay xididka afka loo kala qaadaa markaas laga bixiyaa xididka markaas markii laga baxsho xididkaas dad dhan isku jibi karta awooddaas ay lahaa jirtay ma laha hayso maadaama ay sabir markay ku galaan farxad iyo qosol iyo ama kaaga hotor koow markii koow ama kaaga la kulmayaan oo inay cabsoodaan maxaan dhahaa si tartiib u qabo baarkan wax ma cunaa ilkana ma leh bal waayahay aniga laftigayga weligay mas dusha ma saarsan cabsi badanna waa dareemayaa bal dadku si ay u arkaan inaad bal igu tijaabisid baalkana waa ka cabsanaya afkiisa inaa qabatadan ka rabaaya bal hal mar dushayda saar oo igu tijaabi okay diyaar waay oo saara adiga ka cabsan wax oo saameyn leeyahay ma leh waa ii jeedaan dabcan daawadayaal
gacantaada madaxa u qabay moogtaan waa ijeedaan kulley waxaan u malaynayaa inaan noqonayo wariyihii ugu horreeyey oo mas madaxa saarsada iskoorkaasna uu yahay mid aniga ii xiran mise waa wariyaal iga horreeyey baa jira maya adaa ugu horeeyo kiliib lagu galo dareenkayga runtii lama soo koobi karo waa ujeedaan maskaan oo jibiso ah oo walaalkeen magaciisa muxuu ahaa qaalid yare uu dabcan uu waday ayaan aad u jeedaa sida dushaan u saarayno qaalid waxa uu sharaxaad dheer ka bixiyay maskan iyo qaabka uu socda laakiin wax ma dhibaayo isku kay laaba lugta ayaa hal mar iga qaadnay